UNHCR here is represented by two offices, UNHCR in Soomaaliya and UNHCR Kenya. We are part of the tripartite commission in support of the initiatives of Jubaland government in terms of finding solutions with displaced population. As you know, Kismaayo is the main area of return for refugees from Kenya, specifically from Dowladdaha, and we would like to express or rather demonstrate our serious commitment in supporting the government in making sure that the environment that will enable for people to return will be achieved in line with its plan. I would like to give the floor to my colleague from UNHCR Kenya, UNHCR representative Mr. Rauf Masu, to also say a few words. Hello, my name is Rauf Masu. I'm the UNHCR representative in Kenya, and we're very pleased to be here today as part of the tripartite commission meeting that is taking place here. Half of the refugees who are coming back from Dowladdaha are from here, are from Kismaayo, and the number of refugees coming back that we have seen, we've confirmed this. So the purpose of our discussion here is to see what more can be done to support those who would like to come back to their place of origin. Thank you. For refugees, Department of Refugees Kenya. I have worked with refugees in Dadaab, and I am happy that we have come here to Kismaayo to see how those who have already come back, 10,000 refugees have already come back home, and we are so excited about that. And we look forward to even to a greater number this year. We are targeting 50,000, and we are aware that the numbers that have already come, they still need support. So let me assure refugees, returnees who have already come, that we have not forgotten you. We know you need education for your children, you need livelihoods, and we are going to visit the site today so that we can get that support come back to you. So I'm very grateful to Jubaland. waxaa maanta halkan la isugu yimid arrimaha qaxootiga iyo barakacayaasha sidii loogu dhisi lahaa dhul ay degaan kuwa soo noqonayana ay u soo degi lahaayeen halkaas ay ka qayb qaadanayaan hay'adda UNHCR hay'adda qaxootiga iyadana Kenya dadka qaxootiga gacanta ku haysa commissionka Soomaaliya oo qaabilsan arrimaha qaxootiga iyo barakacayaasha iyo commissionka Jubaland oo qaabilsan barakacayaasha iyo qaxootiga sidoo kale safaaradda Soomaaliya iyadana Kenya iyo dowladda federaalka intaas oo dhan waxa halkan maanta loo wada joogaa in arrimahaas xal loo helo. Alxamdulillaah rabbil caalamiin sallallahu alayhi wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Maanta waxaan soo gaaray wafdi ballaaran oo ka socdo dowladda federaalka Soomaaliya, UNHCR iyo dowladda Kenya. socodkoodu wuxuu ahaa sidii loo soo celin lahaa qaxootiga Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Kenya. waxaa kaloo la socdo IOM iyo Norwegian. waxaan isku afgarannay qaabka hore loogu heshiiyey oo ahaa saddex geesoodka dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Kenya iyo UNHCR heshiiska hore oo galeen oo soo celinta qaxootiga Soomaalida ee dalka Kenya ku dhaqan dib loo soo celin lahaa. haddii la soo celin lahaa marka qaxootigu wuxuu u baahan yahay in loo diyaar garoobo soo celintii. in la iska soo guriyo noqdo ma ahan ayadoon loo diyaarin waxay u baahnaayeen sida deegaankii, waxbarashadii, biyihii iyo caafimaadkii. annagu haddaan Jubaland nahay waxaan u ballan qaadnoo siinay dhulkii ay degi lahaayeen qaxootigaas oo ah intay u baahnaayeen oo dhul ah.